waqtiga iyo waxyaabo badan baa iska jirjira marka cududaar rabna insha Allah waa jeclaan runtii inaanu inku dayno laakiin hadda waxa badan ka nooga hormaray sabaqa ka caashahay Soomaaliya marka waa idin kaga mahad celinayna runtii dadaalkiina iyo juhdigiina aad soo gasheen waana ka cududaarayna wixii naga gaabis wixii naga noqday shirkaan qadadan hadii la qadeeyay waa mahad celidaas ujeedadeedu ahaa inaan yani soo dhawaado inaan niraahno aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin ilaahay waxaan ka baryaynaa sida ducadu iskaga badnayd oo loogu ducaynayo heshiiskaani waa hirgalay ilaahay inuu noo hirgeliyo aan gadaal u noqon oo aan hore u soconno oo runtii waa muuqataa khayr badan baa ka muuqdee aanan dib u noqon ilaahay dib nooga celiyo waxaan ilaahay ka rajaynayaa in Soomaalida kalena ay nagu dayato oo sidii sheekhu uu noo akhriyay hadii quraanka noo sheegay aan noqono walaalaha kalena dadkii islaax iyo wanaag ka dhex raadin lahaa waqtigu waa iska gaaban yahay waxaan u kacayaa in mahad celiyo sidoo kalena aan soo dhaweeyo in ku soo dhaweeyno halkaan dadka anoo ka wakiila deegaanka dadka degmada reer Galmudug odayaal iyo cuqaal iyo gabdho iyo cid walba leh magacooda ku hadlaya soo dhawaada walaalayaal gurigiinii baa timaadeen dadkiinii baa u timaadeen iyo deegaankiinii iyo walaalihiin ilaahay baa noo keenay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maatinkiina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan xagga kugu nimid oo aan bandiirada kugu nimid marka insha Allah intaas aan lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof kasta oo bilow aadnay waa dhimanaya waxa jira marka waxa noo dhiman walaalayaal ama leelkasa ama saacad waxa noo dhiman ilaa qof xaqa ilaahay aan ku dilan run ma gaarin waxaan hadda iskugu nimid waa dhoodhoob xaqa ilaahay markaan qof ku dilno intaas kale iskugu timaado anagu arkeen horteeda aan ku dilno kan kale ku quus qaato maalintaas aan nabad runteeda gaarin ayadaas aan gaarnay ayadaas waana ku soo ballan in la fuliyana waa la rabaa oo nabadda horteeda qof lagu dilo iyadoo la taagan yahay oo kii dadka u xogay oo gacanta hayo daacad ay ka tahay xoog baa lagu raadiyay waxa la rabaa qofka dad xogay inuu soo qabto asoo intaan fiirinaya sharciga fiirinaya dhaladka fiirinaya inuu soo qabto ila waa kan hooyo maanta waa qadaacan oo aniga nabadii shalay la waday ayadaas aan ku ballanaa waxa la rabaa qof kasta oo bilwaanaya in lagu dilo nabadda horteeda annaguna insha Allah hadii ilaahay idmo waxa la qofka bilwaanaya hadii carabkiisa iyo calooshiisa kala badnaa waa ehlunaar intii ana waxa la rabaa calooshiisa carabkiisa kala bedelaan oo qof kasto meeshan joogo ama hadii la ku qaybta ka qayb qaadan doono uurkaaga iyo afkaaga ay kala bedelanaan oo waxa aan ku hadlaynaa dar ilaahay iyo daacad ha noqdeen aaba iga sheekeeyay wuxuu igu yiri walaalkay baa waxaan ku yiri markii colaadu bilbilaabanaysa hadii saacad iyo leel ka socoloobo anigu waxaan ilaahay ka magan galayaa ballanna qaadaya gacan aan leeyahay inaan saacad u geysan markaas iyo maxaa dhacay saacad wixii hadalkaas u socda wuxuu yiri wixii hilib iyo caano saacad leeyahay aa cunay miyaysan qabanayn eraygaas wuxuu noqday eray aad u qiimo badan aaba wuxuu igu yiri sidii baan alla iga badbaadiyay maanta oo la joogo sidii baan alla iga badbaadiyay marka waxaan isleeyahay dadkaan awalna waa is ahaa haddana waa is yahay waan ku faraxsanahay runtii mana iloobi doono insha Allah waxaan kale u mahad celinayaa qada sharafkii boqortooyada reer ugaas ay noo sameeyeen Greenberg aad iyo aad baan ayadana uga mahad celinaynaa waxaan kale oo ka mahad celinaynaa kalsoonida aadna tusteen deegaanka aadna dejiseen sharafka badan oo aad noo sameeyeen ayadana waa ka mahad celinaynaa maantana had quraan waxa weeye qurci nabadda weey aad iyo aad bay baad maaragtay ugu mahadsantihiin runtii ma soo koobi karno waxa aad samayseen ninkii shalay Cabdikariin Sheekh Axmed nin la yiraahdo meeshaas fadhiya wuxuu yiri bahashii la oran jiray xafladii waa ku celin anu waxaan qabaa inaan ku ceshan doono lagu celiyo waxa weeye annaku tanoo kale waxaan ismoodayna markii hore niman baa oo wax sameeyeen laakiin waxa weeye waa loo laaban doonaa insha Allah waana ku ceshan doonaa waxaan kale oo si gaar ah ugu mahad celinayaa saacadkii ayaguna
sida sharafta badan u yimid oo kalsoonida leh oo yidhi warban la geeyey goldogob hana la geey qaarkii aan ka soo tagnay weli ay noo caraysan yihiin maxaana kaga soo tegi la yidhi aad iyo aad baa ayagana waan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo u sii mahad celinayaa ilaahay baa mahad iska leh shiiqii hadda halkan ka tegey iyo wiilkii ninkii yarka ahaadoo hadda inoo wacdinayay oo hadalkiisii caloosha runtii uu iga xanuujiyey oo yidhi aabbahay muxuu yidhi buu yidhi xoolihii aan cunay laa ilaaha ila allahu maxamad rasuul war waxaas soo ma jiri jirin war dadku ma waalnaayeen horta annaga xagga gabdha nagama tegin waana gaadeen niman yahow sacad gabdhihii baa noo yimid gabdhuhuna waxaa weeye dhiigga iyagaa joojiya dunkii dhan baa maqlay goobo gabdho lagu siinayana waa arkay horta ishaa macallinaa la oran jiray horta inta meeshaa fadhida qof walbaba wuxuu ku yimid iyo maqaanka uu leeyahay baan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waxaan ka dhegaystay codka washington af soomaaliga ah iyadoo nin jidbaysan hadlay oo yidhi waxaa isugu yimid jananadii ambaastoradii aqoon-yahankii xildhibaanadii markaan fiigi aniga ambaastorka aniga shoole marka labadayadii rag badan baa nala ka dhigay maxaa yeele waxay la yaabeen ambaastor baadiye ma tago iyo tuulooyinka marka inay arrintu ka kulushay sidii la arki jiray halkaasay ka caddahay anuu arrimaha dabadda 60 sanaan joogay oo 2 beri dhiman 60 sano 2 cisho dhiman labada bisha luulyo insha Allah hadii ilaahayna gaarsiiyo soo socota beri dambaha ayaan 60 guuradii ah oo markii caalanka la qaatay 5 nimo la geeyay baan ku jiray waxa marka jira waxa maanta halkaana keenay oo bandiiraleena geeyay oo afbar waaqana geeyay oo hobyana geeyay waa ku dhashay hobyamaana waligay waxaan arkay markii galmudug la dhisaan mar arkay saas ay tahay inaan loo kala harin oo qof walba rabo inuu wax soo arko waxna soo qabto tabartiisu intay doontaan la ekaato ayaa go'aan ahayd ma dhammayn karno iyadana waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad waan mahadsantihiin inta joogtana salaan walaalnimo aan ku salaamayaa inta maqanna salaan walaalnimo oo nabdeed baan ku salaamayaa taa ka bacdi waxaan rabaa inaan cududaar yar sameeyo walaalayaal waxaan ka cududaaranaynaa annagoon gudi karin wixii naloo sameeyey siday ahaayeen waan ka cududaaranaynaa inaad noo cududaartaanna waan rabnaa dhammaantayo si kastaba ha ahaato haddaan tan kan bilaabo ilaa min jiif ilaa min waxbixin ilaa iyo qabanqaabo walaalayaalow raalli ahaada 1 jeer doorka dhalinyarada tusaale wanaagsan waxaa noogu ah sayid cali oo asagoo yar oo saqiir ah islaamnimada nebiga marka uu soo bandhigay qaatay dadkiiba waxay ku yidhahdeen war masawir baa tahay maxaa kugu dhacay maxaa dadkaaga ka waaweynaa iyo ayaryaasha ay walaalaha ula tashan weysa marka wuxuu ilaahay markuu abuurayo sidaan iga dhigaya cidna igalama tashan anna inaa asaga rumeeyo jidka wanaagsan qaato cid aan kala tashanay lama arko sayid cali oo sabiya sidaas yiri annagana taas tusaale noo tahay dhallinyaradeenuna inaan mustaqbal qurxoon aan samaysano oo odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo cuqaasha waddada ay noo jeexeen aan sii wadno insha allahu tacaala cid aan kala tashanayna ma jirto waxaa hosid mudan waxaan ku midoobaynaa inaysan midnimo qabiil iyo mid gobol iyo mid siyaasadeed inaysan waxbana tarayn laakiin waxaan taraysa midnimada diinta islaamnimada iyo mabda iyo ideolojiyad inaan ku midowno abwaangaarihi wuxuu yidhi abkuu doonaha sheegtee wuxuunbaa ehel ii ah qof ninkaan af aqaanee si waxay la arkayeenna midaysa ujeeddo marka ujeeddana midaysa inaan yeelno dhallinyaro odayaal siyaasiyiin haween qolo walba wixii ay haystaan ay isla wadaagaan ayay muhiimaddu tahay